wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka barbaarta oo toddobaad waliba hadahan oo kale aad kala socotaan muqbaahiyaha STN. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta baraha bulshada iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed iyo habka dhalinyarada Soomaaliyeed ay u isticmaalaan. barnaamijka waxaa marti iigu ah Nuux Maxamed Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Afakaado. ku soo dhawaada. ما شاء الله وما سنتين إن سؤال شو هو الرئيس وحن كوبلا بدونا نور براها بالشدة مدوة استعمالي سلسلة في العيب أنت سو استعمالي براها بالشدة تبا معناها أبوه استعمال بدنتها هاي. ها طبعا لكن كم بدنا معناها ما كل قيمة يوتيوب يا فيسبوك سان رأيك وش يعني يوتيوبر بانا يوتيوب كاسان معناها وش قطعة وكوش قيا أنا سعادي وشقاء عادي هي أنا يوتيوب كيساق ها والله دقا مركا وحي دقدقة هو بدن يوتيوب انجليزي وحي هو بدن دقدقة وواحد معناها دعوين كعادي أما عيار هالنقطة أما دور الشهر هالنقطة أما ور عادي هالنقطة أما دواتك لو جرت هالنقطة أما وناك جرى هالنقطة حد بوحي بريك نيوز أما دقدقة أنا هلا وحان قليا أنت بدن يوتيوب فيسبوك وحان قليا ومسك قرار يريار ونسكتين انترتينمنت وهو إلى قصري وحساس كما بدني معنا حق فيسبوك وحقرينتيس كما بدني لكن فيس يوتيوب انت بدن wax walbo degdeg ah markaas nacaf lawan galiyo waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Afakaado waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashii aan weydiiyo Nuur baraha bulshada aad bay u badan yihiin aaladaha la isticmaalo tee u badan tahay isticmaalkeeda adigu horta taas aniga Nuur isku mid aanu ka nahay waxa weeyaan mid aad ugu isticmaal badan tahay waa midan hadda Soomaalidu ugu badan tahay ama number 1 adduunka ah waa Facebook marka ugu badnaaniyo waa meesha laantaada hay'adaada sida yani digniinta hambaliyada wax kasta meesha aad waa meesha ku kala taxanaaqdo aad ku ciil baxdo talabaad soo raacday waa qaabkan YouTube waxa loo galaa madadaalo uma galno qaab yani ganacsi baan u galnaa oo shaqo waan ku shaqeynaa oo isaga taadanta anagu qasabtay marka waxyaabo waxaan ku soo bandhignaa sida uu Nuur sheegay muuqaalo ah oo anaga aan qabanay iyo muuqaalo maxaan ku dhahaayay meel kale lagu soo qabtayba marka labadaas aan ugu badnahay oo ka simanay taas iyada ma sha Allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida ay Soomaalida u isticmaasho baraha bulshada ma sax baa fikrad ahaan maxaa kala aadan sida ay Soomaalida u isticmaasho baraha bulshada waxaan leeyahay barxad kasta yani maanteed in yar oo sida wanaagsan isticmaasho jirta laakiin boqolkiiba inta badan sida kuma loo isticmaalo marka haddii adiga aad sidii wanaagsan xataa inaad u isticmaasho damacdo kii xumaanta u isticmaalaya sida loo buurinayo weligeed buurinaya daawasho marka waxaad leedahay qofba qofku ka been badan yahay loogu daawasho badan yahay aad iyo aad waa gartay adigu bartaada Facebook ee adigu aad isticmaasho wili ma ku baahisay waxyaabo kacdoon sameynaya ama mucaaradnimo ah ama dhibaato keenaya xitaa haddii aan ku daro YouTube-kaaga adigu aad isticmaasho waxaa jirta haddii aan wax baahiyo laazim dadku isku soo uma wada arkayaan hadduu nin uu arka muxaafidnimo nin kala mucaaradnimo uu arkaya marka kullay meesha loo badan yahay man baahiya inta badan kasto marmar laga yaabo hadda inay aad khayr fakato oo aad meel ka istaagto soo hadda ciyaaraha ka socda Soomaaliya gobolada ah adiga marka shakhsi baa tahay waxba taageeraysaa shakhsinimadaada iyo haddii aad saxaafad u shaqeysa kambanigaagu way kala yihiin kambaniga xeer adiga iska leh shakhsiyadaada lacala haddaan banaadir anigu taageero banaadir inaan taageeraan soo qori dadka kama wada bixinaysa marka inta ila taageerto laakiin intii kale way isku horjeedsanayaan wax kastana marka waa siyaasad xataa hadday timaado qofkaad adiga taageertaad gelini oo aad ku baahini ugu ololayni ugu hambalyeeni dadku marka kama wada sinaanayaane laazim dad uba ku mucaarad aad waan gartay Nuur aan u soo laabto Nuur dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira hab si ay u isticmaalaan si oo caalamka ka duwan ay u isticmaalaan baraha bulshada
waxaad arkaysaa dhowr qof oo meel isugu timid oo dhowrkooda aanay isla hadlaynin oo ay ku wada mashquulsan yihiin telefoonadooda marka dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay u isticmaalaan bal faahfaahin inaga sii haddaan soo koobo qaabka Soomaalidu ay u isticmaasho social media siiba Facebook dhibaato badan buu ku hayaa Soomaalida waana qaabaan islaahay boqolkiiba 80 way khaldan tahay waa mahadsantahay Nuur waxaan rabaa inaan sii raacso dadka inta badan markii ay waxyaabo degdeg ah dhacaan isla markii Facebook ay soo qordhigaan oo waa wadi wariyaal dadka Facebook ay isticmaaleen war degdeg ah iyo waxa la soo qoraa wax siyaabo noocaas oo kala ah marka adigu ma kamid tahay dadka warka degdega ah geliya Facebook ها طبعا لكن كوما بدنا معناها مركي لا قيمهيو يوتيوب يا فيسبوك سان هوري كوغو شيغay anu youtuber baan youtube kaasaan macnaha u shaqo taga oo aan ku shaqeeyaa oo macnaha si caadi ah shaqo caadi ah macnaha youtube ka isaga ha waa la dhigaa marka wixayga degdeg ah ugu badan youtube baan geliyaa waxayga ugu badan ee degdeg ah oo wax macnaha dhacdooyinka caadiga ama ciyaar ha noqoto ama doorasho ha noqoto ama war caadi ha noqdo ama dhibaato kale jirta ha noqoto ama wanaag jira ha noqdo hadba wixii break news ama degdeg ah aan helo waxaan geliyaa inta badan YouTube Facebook waxaan geliyaa waa iska qoraal yar yar oo iska entertainment oo ila qosol iyo waxaas marka wax kuma badni macnaha xagga Facebook wax gelintiisa kuma badni laakiin YouTube inta badan wax walbo degdeg ah oo markaas nacf lawan geliyaa waa garta waa aad baan kaaga mahadcelinayaa Nuur waxaa jira dad inta badan social media-ha ama baraha bulshada soo geliya waxyaabo faaxisho ah oo aan wanaagsanayn dadku aflagaadeeya dadku dhibaateeya oo maxaa la dhahaa kacdoon ku sameeya waxyaabo innaba aan caadi ahayn oo wanaagsanayn sameeya ku soo faafiya baraha bulshada qaab noocee ah ayaa dadkaas looga hortagi karaa sideese wax looga qaban karaa arrimahaas waa run way jirtaa macnaha arrintaasi waxa wax looga qaban karaa waan islaahay way jiraan horta macnaha dad saas sheegtay waxyaabaha aan loo baahnayn ku faafiya Facebook waxa ugu badan inta badan aan arkeen aadna ula yaabo waxa ka mid ah in la raadiyo sawirkiisa Sameer Axmed tusaale gabadh qurux badan sawirkeeda in la raadiyo nin baa wuxuu iska furanayaa de waa rag uma mareen kulay page baa la iska furanayaa magac baa loo bixinayaa quruxsan soo jiidasho leh sawir qurux badan gabadh shidan baa la raadinayaa sawirkeeda magac gabdheed buu ku furanayaa ha oo soo jiidasho leh oo heblo maxay raaxi iyo wax aad soo yar jiidasho leh magac yar qurux badan buu ku furanayaa alafu uu sawirkii gabadh qurux badan buu sawirkeeda raadinayaa oo gacmo gudgududay sawirkii meeshii buu soo gelinayaa marka wuxuu ku soo qorayaa da'daydu waa 19 jir waxaan ku noolahay meel hiblaayo waxaan ahay gurdoon fadlan haddaad iga heshay lambarkaaga hoos igu raa wixina gabadhi ma aha gabadhan waa gabadh iska miskiin oo hadii laga yaabo inay wadaad tahay oo gurigoodii iyo xaafadooda iska eegtahay oo gabadh aan ka warqabin ba waxan ha marka mid saqajaan oo laga yaabo inay mar xidhiid lahaayeen baa laga yaabaa oo sawirro u dirtay ha sawirro ay caadi ugu dirtay inuu ka qaatay oo inta magac kale la baxay oo gabdheed inuu ku faafinayo marka si gabadhaas macnaha ugu xumeeyo oo ugu bahdilo marka waxyaabaha dhaqan xumada ah macnaha inta badan aan Facebook ku arka way waliba gabdhaha Soomaaliyeed inta badan lagu targetsado marka waxaas kale waxaan isleeyahay waxa laga hortagi karaa laba qodob labada waa laga hortagi karaa in bulshada wacyi gelin loo sameeyo oo bulshada Soomaalida Ilaahay baa dadka wacyi geliyay in wacyi gelin loo sameeyo oo dadkan jiilkan cusub ee soo koraya maskaxdooda wax badan laga bedelo oo macnaha la xasuusiyo alla ka cabsiga iyo in waxan uu dambi yahay oo waxan wax xun uu yahay برينا آخر الله تجيه ومعنا الدنيا هي الدنيا كلها تجيه مركي إن إلهي أي كبقان وحنا أي معناها فضيحة وحنا دجيان إنه بريد دم بيكون نقنا يا آخر إلا حسوسية وقضب ككلام اللي جوه تيجي كلام حوي إن للدعوية معنا وضد بدن أي دعوتكم صنايان معنا بيت نوع عاصف كلام مركي لا كأدونكم وحول بشرعي ولا شرعي بالوكالة السعودية وحنا شرعي لهين متشرو مركا فيسبوك شرعي بولية يوتيوب شرعي بولية waxaan marka sharcigiisa hadaad adigu jabiso dadka macnaha kale inay sharcigi ay sharciga kugu qaadaan waa lagu qaadi karaa salahan waxaad arkaysaa hadda halkii sawir gabadha halka la soo dhigay waxa lagu soo dul qoray waxaad arkaysaa 300 oo qof ama 400 oo qof ama 500 oo qof oo comment ka bixiyay intubana ay lambaradooda ku qoreen meesha
oy run u haystaan macnaha haye oy run u haystaan aan kula kaftamee nuur adigu ma ku jirtay dadka halkaa nambarka ku qoray marba ha ahaatee maya anigu horta waan fahansanahay macnaha sababtoo ah anigu ilaa 2000 waxaan u malayn 2006 mise 2007 buu soo baxay Facebook markii ugu horreeyay dadka bulshada aysan weliba aqoonin anigu marka 2008 bilowgiisii baan ku soo biiray yaan Facebook ku soo biiray marka waxaan u malayn hadda almost 8 sano 10 sano adigu ku dhawaad 8 sano yaan odhan ugu yaraan 9 sano waan isticmaalayaa marka waxaad 9 sano soo isticmaalaysa khibrad baad u leedahay dabcan dee qof wariyo oo cilmiga saxaafadda bartayna waanahay marka waxaan maadaama uu yahay macnaha wax aan waxba ka jirin anigu waan fahmayaa inuusan waxaan wax ka jira inuusan ahayn marka anigu wax walba oo noocaas aan ribood baan ku sameeyaa marka 300 ama 400 ama 500 ee lambaradooda ku qoraya hoos ku qoraya waxaan odhan lahaa haddii ay ribood ku sameeyaan iska daa 500 haddii ay 100 ka mid hadday ribood sameeyaan automatic baa loo xidhayaa macnaha Facebook aa loo xidhayaa saasuna hawada kaga baxaya marka labada qaab waa laga hortagi karaa wad maasantahay horta dadka intooda badan ma fahansana in dacwad sidaas oo kale loo oogi karo ama Facebook user la xiri karo inta dacwad lagu ooga waxaana u malaynaa in intooda badan ayna fahansaneen oo dad badan oo dhib qabaa jira oo dacwo qabo marka waxaan rajaynayaa inaad page-kaaga Facebook aad ugu sheegto qaabka loo xiri karo afakaadhe agtaala markaan afakaadho aaladda oo waayadan dambe ugu dambeysay soo baxday Snapchat-ka la yiraahdo salaadii marka la tukanayo xataa halkaanay ka shidan tahay la yiraahdo adigu ma isticmaashaa oo ma tiraahdo halkaanay ka shidan tahay horta waagii u horreysay soo baxay waan soo dejistay waan samaystay sidaan ku waday laakiin iyo siduu noqday way kala noqon way is noqon waayeen anu waxaan ku waday wax yar oo fiican oo video muuqaal laga arkayo dad badan oo in badan asxaab haydeen oo aydaan is arkin wadamo kale aad kala joogtaan muuqaalkooda dhabtaana ku tusin sidii laakiin muuna noqonin wax wuxuu noqday heesaha laga daaro waxaan waayay intaan qof ku hirsaday ruux isnaab soo gala oon heeso shidnay marka waxaan sii show heesaha baalka lagu yartoosiyaayo wax heesaha lagu xayeysiiyey mid yar oo saaxiibana wuxuu yidhi anigu Snapchat-ka faa'iido kale kuma qabeen aroosyaha ka jira magaalada aad ogaataa yaan ka taloogayaa hoteelaha ka kala jiraan waayo midaba markay arooska tagtay ee muusiga la daaro ay gashaa halkaasi ka shidan tahay waxaa ninkii gaari lahayn markuu hees ku rido yuu daharaa marka niyo waxaan ba anigu hadda u fahmay bahalka wax uun heesaha lagu xayeysiiyey isaga iyo bahalkan la dhaho Instagram ولو انستغرام قامو البن بويا waxa lagu gurto oo albumkii lagu gurin jiray sawirada albanka haweenka oo qaana kaas inkastoo albanka haweenka yahay oo siba dhaamaba labadoodu hadda idooyinka abiyada ku horeeyay ay keeneen ma ay laha kool malaha chatting fiican malaha oo chatting wasa Snapchat oo aad marka iyo qorto hoostu iska sii tiri waxa masaxay aadan aragado waxa kale jira xataa hadii wax lagu soo diro oo inta yar fiiriso wax yar aad u tiri soo gaari mayso inaad ay soo dhigtaan marka labadaas midna moona shaqadiisa soo bixi nimankii haddaan garanayo waxaan dhihi lahaa soo yar bedelo oo ama wax ka bedela ama wax ku dara waxa uu baan arkaa laakiin isticmaalkiisa xataa مسكح أذك ما فاهم تقول روحه مثل بنت يستعرض براءة تقديري سيد جوال ما في سجل لا خيار هذا الماء براءة خيار النوع حرقوا قوم كله إنك مرة كار فيديو يرى إلى قصره وحي عاد كأرك هذانا مال سيد الفيسبوك وحرني وين مرت فيسبوك ولا سكت قال كرا ولا سكت قالتم كرا ولا وشين كرا فيسبوك حتى واحد قريص واحد كبر من كتوي ليش الحرقة وحكوا عن جلين كتمام مال وحكوا هناك كتمام مال حتى فيك كاع تكسر بدين كتمام ومال سكا ما قمت القاطع لكن مسكيت لا تلاش بيه وقرتي أنا فكرت ودي قصدي سيم بدن نور مرر بدن واحد عادي إن reero dhisnaa oo wada joogay ee ku kala tagaan isticmaalka baraha bulshada
waana saameyn aad xoogo u yara adag marka maxaad ka dhihi lahayd arrinkaas arrinkaas wuu jiraa waa arrin dhib mise la kulantay adigu hadda ka hor anu horta dad iska furay ma arag laakiin dad ku sigtay baan arkay maya waxaan ka wadaa dad isticmaalkeeda isku dirira oo reer u ah oo wada joogo hal qoys ah dabcan haa way jirtaa oo anaa arrintaasi marar badan bay dhacdaa waxa ugu badan ay ka dhacdana waa inta badan anu inta aan ka warhayo ama aan arko ama la iiga sheekeeyey waxaa weeye facebook waxyaalahan hadda snapchat iyo waxa uu saaxiibkay hadda ka hadlay waa wax iska dambeeyey oo isagu xilligooduna uu iska dhowaa waana iska xero aan u malayn dumarku inay ku badan yihiin oo iska xayisiin iyo waxsaas marka laakiin waxa dhibaatada saan horeyba u sheegay dhibaatada badani waa facebook marka intaas oo dhibaato ayuu leeyahay arrintan marka aad weydiisay ee xagga qoysaska familka way jirtaa macnaha in dad famil ahaay ay isku afgaran waayaan macnaha isticmaalkan oo waxa ugu badan ee ay ku timaadana waxaa weeye dee dumar haddaad tihiin waad masayr badan tihiin baan wax baal masayr idhaa laydinku sii daayay marka gabadhu hadday facebook isticmaasho wilinkiina uu facebook isticmaalo labadoodii meeshii bay macnaha ay facebook way ku wada jiraan marka labada dhanba way ka iman kartaa dumarka kaliya aan u aanayn labada dhanba way ka iman kartaa inta badan way ka timaadaa waayo gabadhii hadday 24 saac ay online ku jirto oo dad la hadasho ninkii shoog baa ku dhacay dadkan ay meesha kala hadlaysi iyo waxaan meesha yaa waaye iyo yaa kula soo hadlay iyo wax badan baa imanaya iyadana sida oo kaleeto haddii ninkii oo isagana meesha chatting garaynayo yar qosqoslaya sidana bahalkan markaad ku jirto facebook chattingkiisa markaad ku jirto laazim waad qosli sababtoo ama wax kaa yaabiyaad ku arkaysa ama qof aad asxaabtiin baa qoraal kugula hadlaya marka dabcan sidii laba ruux oo wada joogta camal ay isugu qosli lahayn bay labadii ruux ee chattingka ka wada hadlayeen ay isugu qoslayaan marka isu qosolkaasi wax badan buu macnaha iyo reerkii macnaha familka ay meesha deganaa iyo dhibaya haddii aan laga taxadarin marka hore hadda waa dhaweyd waxay ahayd qiso waxaa la ii sheegayey qisa waxay ka dhacday ma aqaano meesha waddankay ahayd waddamadan adduunka waddan ka mid a diyaarad baa yaa socotay lamaanaa diyaaradda la wada socday lamaanihii diyaaradda la wada socday diyaaraddii oo hawada ku jirta yuu ninkii suuliga aaday talaafinkii wuxuu kaga kacay kursigii laba kursi oo dee isku xigtana way fadhiyeen marka gabadhii ninkii marka wuu kacay talaafinkii uu meesha kaga tegey gabadhii marka way qaaday taleefonkii ninkay qaaday way baadhay way feerisay waxay ku aragtay intaas oo sawir oo naag kale iyo dad uu islaamu u kala hadlay jaatankii iyo waxbay ku aragtay sawirro ay u soo dirdireen iyo waxbay ku aragtay gabadhii waa iyada hawada martay ninkii markuu soo laabtay suulinkii maxamagay ku dhigtay diyaaradda dhexeeda ifoor meesha baa laysku dhigay dagaal caadiya meesha ka dhacay diyaaraddii iyadoo oon gaadhin macnaha meeshii ay ku socotay waddankii marka ay kor maraysay waxay ku khasbanaatay diyaaraddaas inay degto sababtoo ah dagaalkii waa la qaboojin waayey shaqaalihii iyo kabtanadii iyo wax walbaa la isugu yimid ninkii waa laga furfuri waayey naagta diyaaradda meesha baa lagu dejiyey waxay taleefonka ku aragtaa macnaha arrintaas sababay diyaaraddii halkii baa lagu dejiyey halkii baa lamaaniya lagaga dejiyey diyaaraddii si aysan shil u gelinin diyaaradda aynan shil u gelinin marka waxyaabaha inta badan adduunyada ka dhaca ay ka mid tahay marka taasi mid heer caalami ay ahayd laakiin soomaalida dhexdeeda markii la yidhahdana intaas oo reer bay problem iyo isticmaalka baraha bulshada ku keenay waxaan isleeyahay reeraha dhisani waxay kaga badbaadi karaan baraha bulshada in aysan badsanin isticmaalka baraha bulshada in aysan badsanin marka wixii muhiimad ah ee qof walba uu markaa ka qabsanayo isaga danu ama hadduu qaraabadiis ka salaamayo ama haddii uu dee waxyaabo kale oo fiican oo lagu qabsadaa jira oo cashiro diini ah laga baran karaa waxyaabo kaleeto oo fiican baa lagala socon karaa wixii markaa wanaag u ah qoyska aan problem keenayn keliya inay ku koobnaadaan laakiin waxyaabaha dhibaatada keenaya inay totally ka dheeraadaan baan isleeyahay marka sidee is leedahay reeraha dhisan waa looga badbaadin karaa baraha bulshada waxaan odhan lahaa baraha bulshadu way kala yihiin baraha bulshadu waxna waa waqti lumis waxna waa wax faa'iido adigu aad ka samayn karto oo faa'iido haddaad ku jirto in uun faa'iido laga yaabo inay kaa soo gasho waxaan isleeyahay odhan lahaa inta hadda ugu badana la isticmaalo waa whatsapp facebook youtube twitter snapchat baalka kale snapchat iyo instagram waxyaabaha kale waa waxaan hadda soomaalidu inta badan aan soo gaarin way jiraan macnaha applicationno badan oo kale
laakiin soomaalida inta badan maysan soo gaarin marka shantaas ama lixdaas waaweyn ee hadda soomaalidu inta badan ay ku jirto waxaan odhan lahaa wixii fidna ah sida Facebook oo kaleeto fidna badan baa ka dhalatay aan is odhan lahaa wixii fidna keenaya Facebook totally dhalinyarada Soomaaliyeed inay iska daayaan iyagoo ilaahayna uga baqaya ummadooda dhibaatada ay ku gaarsiinayaan uga baqaya siiba waxyaabaha dumarka lagu aflagaadeeyay in la iska daayo ay ka fogaadaan taas waan ku talin lahaa waxa kale oo ku talin lahaa wixii faa'iido u keenaya inay isticmaalaan haday Facebook tahay oo ay faa'iido ay ka helayaan macnaha faa'iidada kaliya Facebook laga helayo waa inaad afkaar wanaagsan ku gudbiso oo ummadda wax tar u leh qaraabadaada iyo asxaabtaadana aad kala socoto xaaladooda caafimaad iyo wanaagga marka ay ku jiraan aad kala socoto waa intaas YouTube-na hadasaan ognahayba YouTube inta badan hadda dhaqaalaha laga sameeyaa dadka fahansan ama ilaahay u dhib yaray dhaqaalaha laga sameeyaa marka inta YouTube-ka ama iskaga dhex jirtaan ama meelaha aad waqti ku luminaysaan YouTube-ka idinkoo wax wanaagsan gashada dhaqaalana ka samaysta ha yaa idin fiican baan oran lahaa hadda waxaan u maleynaa in telefoonada la iska xirto log la kala gashto wax la kala qarsado baraha bulshada keenay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo applicationada baryahan way sii badanayaan dhalinyaradana aad bay ugu sii mashquulayaan qof walba dantiisu waa seegtay marka maxaad baaq oo u diraysaa in dhalinyarada isticmaalkooda iyo maxaa la dhahaa mashquulkooda tirada badan iyo ku aadan la sameyn karaa oo laga hortagi karaa kow awal qofka website kasta qofka laga wada yaqaan ama qof qoran yaqaan ama qof laga wada yaqaan in qofka la atagareeyo oo la aado oo la yiraahdo walaalo waxaas wax iska daa oo waxaan la waaniyo in Soomaaliya baa tahay ninkan isdii joogay muqdisho joogay website qoray kulka laga yimaado aniga waxaan inta badan baahiyaa website ka magaciisuna waa qaab wacyigelin ka samaysan jidka toosan marka waa wacyigelin guud oo ahaa waano ama wixii warbixin war aha daruuri loo baahan yahay inta badan warbaahinnaha ugu waaweyn aan ka soo deganayo ama aan anigu xaqiiqa ahaan hayo marka amara kuma mucaarado waxbana kuma dumiyo waa website dhisitaan ahaan kalbalsa wax ma yarxayd hadda ay wasi bataan waa gartay ugu dambeyn gabagabadii ayaan maraynaa su-aasha ugu dambeysa waa dhextaalo labadiinabu waa idinka rabaa jawaabteeda intaad isticmaalaysa social media maxaa idinkula yaabadnaa oo idinka fajacsiiyo aad ku dhex aragtay horta la yaab waxaan isagu waa la yaab socda maanta soo ma taagin maantadan aan taaganahay laba dhacdo yaa la isoo gudbiyey kama duwana kuwii hore ee aan maqli jiray la yaabka ahaa laakiin waa labadii ugu dambeysay mid muqdisho ka dhacday midna waa xaqiiqo maanta wakarteeda loo fadhiya waa isliidan aan joogno Nairobi tan islii waxaa la yidhi dadkan social media isticmaalaya gabadhii wiils qaba ninku inuu isticmaalayn baan malay nin weyn buu ahaa iyo gabadhii baa waxaa lagu wada jiray hadda Facebookiiba waxaa fara dheer WhatsApp baa la yidhaahdaa group baa la samaysan oo toban baa la isugu keenay ku kalaa la samaysan 49 qol buu ruuxu ku jira oo midba cod gaar ah kaga hadlayo marka qol baa lagu wada jiray qolka marka waa la doodi qaar baa marka qodobka yaala wuxuu doonaba ha ahaayeen aan isku taageersan qaarna waa isku dhacaysaa waxaa intaa dheer guur beenbeen aan iska guursadaa laba ruux oo saqonin baa hebel isu dhiso oo caawa dhan baa laga shaxran la alaasiyo waa wax un maana yani gruubka dhexdiisa gruubkii noocaas ahaabaa lagu wada jiray gabadh la qabaa ku jirtay marka waa ninkeedina life u joogo gruubkana iska qasaysay kolkii marka laga yiri waayo show wayar mashquulshay laga yiri waayo taleefankii oo ninkii uu hayo yuu mid in la qabo yana la qabi baa waru hayo inuu gruub kula jiray wicitaan dhac soo siiyay inuu qolkii soo gal dhaho yuu damca WhatsApp-ka aan dadkii isla xayrin aan halka ka sameysnay هذا كرياها يمردين هلو بيبي لغة صوت البقول نيجي إسلام تقريبا بيبي لغة صوت البقول نبى نكويل وأنا ما بتشاي نيجي هو بقول الله يا أنت اللغة قرية صوت شو من البيت تقول نيجي وصوت تعين كرالي قلت أنت على جوا بعمله لغة واتساب نحفظ
kolba hada lu bood u mooday xagga u bood jikada ka daxay ninki markuu soo waayay islaantii dadkii la dulfuulay jawadu ka saaray harabkeedu ninka dhigay wuxuu yidhi aniga luuqa soo galkulaan wuxuu sheegtay waxay tiri WhatsApp ku ahaa qolkiibu ninkii galay oo wixii ka socday buu arkay iyo ninkii meesha ku jira ka daranta ninku way bay yaqaanaan labada nin laba nin dariska ah arrintii way kululaatay cirkay tagtay ninkii baa loo tagay war maxaa ka yeersiyay waxa anuu wax qabana ma garay gabadha baby-na waa iska yidhi waa iska qabsigayay Nairobi-na nin baby-daas ama farax ku haysa waa arkayo haweenka maqaayad tagto baby maxaa ku siiyaa baby-dii baa naqasaysa oo Nairobi la qasaysa uma ducay ku keenay ninkii marka wuxuu yidhi anigu saa waa iska yidhi war iska yidhi ka bixi mayse gabtii hadda loo fadhiyaa salaad casar la tukan hawsha garteedii baa hadda loo fadhiyaa taasi waa wallaahi waa saameyn aad u inuu dumi reerkaas iyo inay kale Allah waa taasi waa mid kala jir oo iyadana tan maanta ay soo gaadhay kuwii hore haba gaari wuxuu inuu la yaab socdo yahay gabadh baa ninkeedii baa musqusha galay taleefankay fiirisay waxay aragtay gabadh ay sheeko fiican u socoto xagga Facebook markii gabadhii aragtay waxay tiri wax ay samayso oo talaabo ay garan weysay waa garta waan soo gab aad baan soo koobaya aniga afar qodob baa macnaha igu yaab badnaa afarta qodob waa Facebook mid kala dhacday iyo waa laba Facebook iyo mid Snapchat labada Facebook waxa weeye in lagu yiraahdo qofkii hadda aad ogeyd nuur hadda aad ogeyd wuu dhintay Allah u naxariisto inaad ku aragtaa la soo dhigo inaad ku aragto gabadh hiblaayo sawirkeeda garanayso oo waan guurdoon baana iyo qodobka saddexaad oo ah Snapchat oo inaad aragto qof heerka la gaadhay dhaqan xumo qof intuu Snapchat iska duubayo mas'uul ku jiro halkan ay ka shadaan tahay leh ana saddexda qodob aniga igu yaab badnaa marka intaasaan kusoo koobaya aad iyo aad nood mahadsantahay aad baan idinku mahad celinayaa nuur maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan afakaadho inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijkii codka barbaarta oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay saameynta baraha bulshada waxaana idinla socodsiinaysay anigoo ah Sabiira Cabdullaahi Jaamac barnaamijka waxaa marti iigu ahaa nuur maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan afakaadho inta aynu ku kulmi doono toddobaadka soo socda sida iyo nabadgelyo